السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة وهذا دمانتينا codsigiini caaw ii suurtagalay insha Allah biidin illah inaa idinkaga soo jawaabo maxallaha qaxootiga ku nool Masar ama Soomaalida joogta Masar dhammaan insha Allah waxaan rajaynayaa maxallaha inaa fiidiyogan aad kaga bogan doontaan warbixinta idin wada inkastoo ay yar tahay laakiin waxaan rajaynayaa inaa maxallaha wax ka faa'iidi doontaan ay noqon doonto warbixin cusub oo idinku cusub adinka markii intaas laga soo gudbo maxallaha waxa idinka codsanayaa YouTube-ka maxallaha linkigiisa kor ka saaran yahay inaad subscribe-ka ii saartaan oo waxaan ku dhahay maxallaha fiidiyogana aad meel dheer gaarsiisaan soo marka qaxootiga Masar markii aan baaritaan ku sameeyay waxa aan la kulmay waxa la fajacay yani maxallaha yani wax oo yani saas qariib u ahna ma ahan laakiin qaxootiyada waxay leeyihiin qiimeynta sarba inaa idin fahansiiyo horta waxa aan la soo kulmay aan la fajacay waxay tahay waxa la soo kulmay tirada qaxootiga oo maxaa la dhahay oo joogta maxaa la dhahay Masar tirada ugu badan inay tahay horta Suudaanna ay ka joogaan 850 yani milyankii wax yar ugu dhiman yahay taas waa aad ula fajacay ma yani saraaxa duruuftii dagaalada maxaa la Suudaan ku dhacday ayaa keenayso la yaab ma lahan laakiin waxa waaye maxaa la dhahay zaid yani 1 milyan hal wadan oo hal mar ka soo qaxeen bismillaahir rahmaanir rahiim ilaaha u gargaaro marka intaas laga soo gudbo Soomaalida ma qawaay marka Soomaalida waxa waaye 850 yani 10,000 xitaa ma dhamo 800 ma ahan 8,000 aniga qalday kuwaas 850 ah Suudaantu waa 850 Soomaalidana waa 8,500 marka meesha waa ku dhex dhunteen maxaa la insha Allah biidinillah nasiib waana idin rajaynaya laakiin midda oo laga yaabo in idinka fahansaneen oo raba in ay idin fahansiya waxay tahay qaxootiga markii maxaa la saasoo kale hadda Suudaan aad ugu badan wadamada kaleeto Suuriya iyo maxaa la Yemen iyo yani wadamada kaleeto sida Soomaalida camal waay ayagana 8 ilaa 9,000 ilaa 10,000 waay waa tiro yar oo kooban laakiin maadaama Suudaan ay zaid u badan tahay ayna Masar daris la tahay qiimeynta ugu badan oo yani qaaditaanka waxa laga yaabaa inay hesho Suudaan zaid in loo qaado maadaama maxaa la hadda xaalad adag ay Suudaan ka jirto tirada ugu badanna maxaa la qaxootiga Suudaan ay tahay soo marka ayaga laga yaabaa qiimeyn zaid inay helaan Soomaalidana markaas hal qof in lagu dhex daro sida aniga qaxootiga inta hadda wadanka aan joogo aan ku arkay maxaa la wadanka hadda aniga aan joogo Indonesia qaxootiga u badan waxa waaye maxaa la Afghanistan wadanka Afghanistan waay Soomaalida iyo dadka kale ku yar yihiin marka Afghanistanka 2 sano iyo 3 sano meelahaas ay ku baxaan ilaa 4 sano Soomaalidana marka dadka yani waa lagu dhageystaa dadkaas marka dhowr sanadkiiba 3 qof 4 qof lagu dhex daraa soo marka hadda way horena way noogu sheegeen waxay dhaheen maxaa la haay yani waxa iska leh xaq waxa u leh qaxootiga maxaa la Afghanistanka oo maadaama maxaa la wadanka wadan Asia uu yahay ayaga xaq u leh xaqana maxaa la maadaama Masar ay Suudaan daris la tahay yani xaq ziyaadada ah Suudaan ay iska leh qaxootiga dhan yani waa la qaadaa laakiin Suudaan u badnaan doonto insha Allah adinkana maxaa la haay nasiibkiin waa helaysiin midda ku xigta waxay tahay in adinka fursad haysatiin isku mashquulisiin haddii noqoto waxbarasho haddii noqoto maxaa la haay shaqo yani fursad dhan kasta ay noqoto aad heli kartiin laakiin qaxooti bas ha u go'ina naftiina isku daya inaad mashquulisaan intaasna waa iga talo insha Allah wixii kaleetana waa idin la wadaagaya wixii aad su'aal ka qabtaan isoo weydiiya